hydrocarbons that contain single covalent bond. Hal dabar ayay leeyihiin oo loola jeeda kan kaas oo u dhexeeya laba carbon. They are saturated compounds waana milan dheragsan oo waxaa weeye isku dhis compound oo dheragsan ah. Alkaneska waxay leeyihiin general formula oo loo yaqaana CnH2n+2. formulahaas waxaa iska leh alkaneka ayaa iska leh, waa formulahiisa. Marka haddii inta aanan sii gudagelin waxaa muhiim ah inuu qofka yaqaano qodobadan oo ah 10ka ugu horeysa inaad horta sidooda si aad u magacowdo ama u sawirto inaad taqaano 10ka ugu horeysa oo ah CH4 maxaa la yiraahdaa markaad aragto hal carbon markaad aragto, C2H6 saan aad taqaanaa. hal carbon hadaa aragto waxaa loogu dhawaaqaa methane hadduu alkane yahay. 2 waxaa loogu dhawaaqaa ethane ayaa loogu dhawaaqaa. 3 maxaa loogu dhawaaqaa propane. 4 carbon hadaa aragto maxaad dhahaysaa butane ayaad dhahaysaa, saasaa loogu magacaaba butane. 5 carbon hadaa aragto waxaa leedahay waa pentane, 5 carbon leh. 6 carbon hadaa aragto you will say what hexane. 7 carbon hadaa aragto heptane ayaad dhahaysaa. 8 carbon hadaa aragto octane, nonane, decane. 10 carbon ayaa ugu dambeysa. Intaas waa inta laga maarmaanka ah oo qofka la rabo inuu markay yaqaano 10 carbon maxaan ugu yeernaa la yiraahdaba uu horey ka sheegi kara. 3 4 formulahan ayaan tijaabinaynaa marka, maadaama waxaa la yidhi kaarboonka inta waxay u taagan tahay number of carbons ayay u taagan tahay. maadaama number carbon u taagan tahay inta haddii hal carbon yahay waa hal, hadday 2 tahay waa 2, hadday 3 tahay waa 3. maadaama hadda uu yahay inteena oo carbon 4 carbon haysana inteena maanta waxay la mid tahay 4 bay la mid tahay. 4 2 ku dhufo oo hydrogen 2na aan ku darno. waxaa laga rabaa inay soo baxda formulas. 4 carbon ayaan haysanaa, lagu dhuftay labadan hydrogen oo ah lagu dhuftay 2 times n way mut, lagu dhuftay 2 lagu daray 2. how much can we get? waxaan helaynaa waa 10. waxaa laga rabaa hydrogentina 10 inay noqoto. aan tirinna marka 3 hydrogen lagu daray 2 waa 5, lagu daray 5 2 lagu daray waa 7, 7 3 lagu daray waa 10. waa noo dhanta magaco waa lagu yiri marka waa iska taqaana magaca 4 carbon hadday tahay that is waxa way butane waa mana. hadda wixii aan soo dhigaynay dad waxay disan tahay hore ka magacaabaysaa hadday silsilad ku dhignayn. waa yahay ay magaco waa lagu yiri kan magaco CH3 CH2 CH3 balkan magaco waa lagu yiri marka kugu horeysa inuu aan alkane ku dhex jirnaad ogtahay inuu hal dabar meeshan yaalaad ogtahay hal dabar kaarboonada isku xiraan 1 2 3 carbon waxay la mid tahay 3 carbon waxay la mid tahay propo oo 3 propane ayaa la haysaa. hadhow ayaan classification ku laga soo samayn doonaa ereygan ayuba loo magacaabaya marka. alkanekeena wixii hore introduction baahiyeen hadda ay shaqada noo bilaabanaysaa. markaan rulkaan isticmaalayna marka waxaa lagu leeyahay waxaad ugu imaanaysaa dhowr qodob oo kala ah marka aad
u horeysa bal horta marka u horeysa doora silsiladda ugu horeysa silsiladda ugu kaarboonada badan doora silsiladda ugu kaarboonada badan maxaa loo yaqaanaa parent chain waa silsiladda ugu dheer macnaha silsiladda ugu dheer waxaa laga wadaa haddaan silsiladda halkan ka bilaabo halkan haddaan halkan aan ka bilaabo 1 2 3 4 5 6 7 halkaas tagtay haddana meel kale aan kasoo tiriyo tusaale ahaan haddaan inta ka tiriyo oo inta aan ka bilaabo oo kaleeto 1 2 3 4 5 6 ayay tegaysaa adoo marka 7 heli kara 6 ma dooran kartid saas daraadeed ayaa loo magacaabaa oo lagu magacaabo parent chain okay markii intaas aad samayso waxaa lagaa rabaa inaad doorato silsiladda ugu dheer ayuu ku leeyahay ruleka taas waa sharciga koowaad oo raacaysa waayahay sharciga labaad waxaa siisaa branchiga ama side chainka waxaa loo yaqaanaa silsiladda ku dhegan midda aad dooranaysa mid hadday ka baxdo oo kaleeto ka farcan sida tan oo kale maxaa loo yaqaanaa parent chain ama waxaa loo yaqaanaa side chain wixii ka farcama silsiladda parent chain waxaa loo yaqaanaa side chain kow labadaas waa ku kala cadyihiin tirada side chainka tirada ugu yar tusaale ahaan kow inta haddaan ka bilaabo haddana dhankan ka bilaabo 3 aan usoo tiriyo 4 5 6 7 side chainkayga xaguu aadaya side chainka wuxuu ku dhagayaa lambar 5 haddaan kasoo tiriyo right on left usoo socdo midig haddaan kasoo tiriyo bidix aan usoo socdo tirada side chainka waxay ku dhagaysaa 5 laakiin haddii side chainkayga aan rabo inaan magacaabo si tirada ugu yar oo ah carbon 3 sidee magacaanaysaa 7 carbon wey silsiladan ugu dheer parent chainkeena waa 7 carbon okay hadda waxaan ogaaday marka silsiladeena inay tahay 7 carbon ay tahay parent chainkeena branchina aan soo sheegnay ay tahay CH3 maxaa sida magacaabaya branchiga sidiisa waxaa loo magacaabaa sida kale aan ahayn oo ah meeshii methane ay ahaan jirtay YL baa u dambaysa hadday 2 carbon tahay oo sida 1 2 3 ay tahay oo kaleeto 2 hadday tahay carbon ethyl 3 hadday tahay propyl marka YL aa u dambaysa marka artayna magacooda waa inaad taasna maan ku haysaa side chainka marka artayna magacooda waa methyl ethyl propyl intaas yaa maskaxda ugu qaban doontaa ayaan rajeynayaa kabacdina wixii hadda ka dambeeya namekeena ayaan dabagelaynaa waxaa ogaataa tirada iyo magaca waxaa u dhexeeya dash always keep in mind that maskaxda ku haa ardayow methyl 3 dash waxaa ku dhegan methyl waxaad ku xijinaysaa adoon space u dhexaysayn silsiladda magaceeda 7 carbon waxay ahayd heptane daya soo marnay that's sida aad u magacaabaysa ma garatay all right sidaas ayaad u magacaabaysaa okay hadda maanta waxaan haysanaa kan waxaan rabnaa inaan magacaawna sharciga haddaan raacna waxaad siisaa side chainkaada lowest possible number laakiin tan hadda waa 5 carbon waxa waaye meesha doonta kasoo bilow ma left ka bilow ma right ka bilow carbon 3 bay isugu imaanaysaa marka sida branchiga loo magacaabo waa soo aragnay laakiin hadda maanta waxaa ku dhegan 2 methyl ayaa ku dhegan tirada ayaa soo qaadaysaa 3 2 lambar waxaa u dhexaysa coma lambar siisaba coma u dhexaysa 2 lambar wuxuu doona noqdo 3,3 labadaasay iskula dhegan yihiin isla ayadaa soo celinaysaa dash all right die 2 carbon oo laba xabaa ku dhegan oo methyl ah dimethyl bentane silsiladeena ugu weyn waa bentane dimethyl bentane waxaan sidoo kale ku xasuusinayaa
haddii silsiladda ay ku dhegto wax ka badan hal saajeyn waxaa isticmaalaysaa ereyada horgalayaasha ah ee loo yaqaana dai. hadday 3 tahay try. hadday 4 tahay tetra. benta hadday kasii badataa hexa. hadday 5 tahay kan dai haddaa aragto waa 2 try haddaa aragto waa saas tetra 4 benta 5 saas ayada ugu hor ereyaashaas aad isticmaalaysa haddii sajeenka ay kala duwan tahay. alright okay hadda waxaana la siiyey midaan haddaan tirada xageen kasoo bilaabnaa marka tirada waxaan ka bilaabanaa dhankan midig iyo bidix aan ka bilaabnaa 1 2 3 4 5 6 7 8 dhanka haddaan kasoo bilaabna 1 2 3 4 5 6 7 8 sharciga ayaa noo ogolanaya inaan magacaawno oon ku magacaawno silsiladda lambarka ugu yar ayadoon siinin. haddaan midig kasoo bilaabo oon bidix usoo socdo 5 ayay ku dhegeysaa silsiladda ama 4 ayay ku dhegeysaa. haddii intaan kasoo bilaabana 3 ayay ku dhegeysaa. marka meesha noo dhow ayaan ka bilaabaynaa. okay meesha noo dhow ayaan silsiladeena ka bilaabaynaa oo ah 1 2 3 4 5 6 7 8 maanta silsiladda 2 nooc oo kala duwan ayaa ku dhegan. meel waxaa ku dhegan c carbon magaranaysaa meesha aan waalax ka dhiga meesha aan waalax ka dhiga meeshaasaan waalax ka dhiga hal mar. meesha ch2 oo ethyl ku dhegan meel ethyl ku dhegan. maxaa lagaa rabaa inaad isticmaasho hal wax ayaa jira oo ah inaad u kala hormariso alphabetical order. mar hadday silsiladaha kala dhegan yihiin oo methyl propyl caloro waxaasay ku dhegan yihiin waxaan fiirinaynaa a b c yaa soo horeeya. meeshan hadda waxaa soo horeeya ethyl oo ka bilaabata e iyo methyl oo ka bilaabata m. kee hormaraynaa e baan hormaraynaa. lambarkay ku dheganta noo sheeg. lambarkay ku dheganta waa 5 dash ethyl 3 haddana waa lagu dhegan yahay dash maxaa yeelay lambar iyo xaraf waa inay u dhacayaan ayna methyl ayaa ku dhegan sorry waxaa ku dhegan methyl ayaa ku dhegan. silsiladeena ugu weyna waa octane oo 8 carbon oo octane saas ayaad u magacaabi kartaa ruulka hadaad raacdo waxna kaama qaldamayaan. waxaan rajeynaya inaad ka faa'iidaysteen. casharkan oo taxan ayaa socon doona haddii ilaa yidhaahdo. waa ku mahadsantihiin inaad nala socotaan.